dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Halkani waa Gaacar Media Tube. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan kusoo dhawaada barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube. Barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube ee wararka waxaan idinkugu soo gudbinaa alaaba arrimaha siyaasadda, teknoolojiyadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada, caafimaadka iyo wixii la mid ah. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u guda galin barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube ee maanta, marka hore subscribe, like, share iyo follow dhaha page-ka iyo channelka Gaacar Media Tube ee aan ku leenahay Facebook-ka iyo YouTube-ka. Aan ku bilowno. Maanta waxaan kusoo qaadanaynaa barnaamijka wixii cusub ee arrimaha bulshada, gaar ahaan qisada dhakhtarka adduunka ugu gaaban Ganesh Bharia. Ganesh Bharia oo uu dhererkiisu yahay 91 sentimitir, yaraantiisii cadaadiska iyo takoorka kaga imaan jiray qaar ka mid ah bulshada kama aysan reebin inuu ka dhabeeyo riyadiisa. Ganesh Bharia waa 23 jir, ku dhashay dalka Hindiya, gaar ahaan goobta la yiraahdo Talaja Taluka. Waxaa la sheegay Ganesh in uu yahay astaanta adayga, dulqaadka iyo sidoo kale wax walba in la samayn karo ayuu astaan u yahay Ganesh Bharia. Ilaa iyo 4 jirkiisii, sida carruurta caadiga ayuu caafimaadkiisa ahaa. Qaab dhismeedka jirkiisa hadday noqoto madax yaridiisa iyo gaabnidiisa, markay arkeen waalidiintiisa oo ay ka yaabeen, waxay geeyeen goobo caafimaad oo kala duwan, balse wax isbeddel ah kuma soo kordhinin. Gaabnidiisa iyo madaxiisa oo yar awgeed, iskuulka markuu tago xitaa saaxiibadiisa iyo ardayda kale wuxuu kala kulmi jiray takoor iyo tacaddi. Haddana Ganesh intuu dagaal samayn lahaa, wuxuu ka doorbidi jiray inuu waxbarashadiisa diiradda saaro. Waalidiinta Ganesh sidoo kale waxay ahaayeen kuwo ku dhiirrigeliya riyadiisa ah inuu mar u noqdo dhakhtar. Ganesh markuu dhammeeyay waxbarashada dugsiga sare ee uu jaamacadda dhibcaha ku gali lahaa u keenay, ayaa waxaa mar kale la soo darsay faquuq iyo takoor uu yaraantiisii uu kala kulmi jiray bulshada ula noolaa. Qaar ka mid la mid ah ayuu haddana mar kale la kulmay. Haddaba jaamacadda culunta caafimaadka, gaar ahaan dhakhtarnimada, si uu u barto, dhibcaha darteed loogama diidin, gaabnidiisa darteed ayaa loogu diiday. Tusaale ahaan, golaha caafimaadka Hindiya ayaa ku dooday Ganesh maadaama 91 sentimitir dhererkiisu yahay inuusan ordi karin, isla markaasina uusan xanaaneyn karin ama daaweyn karin bukaanada xaaladaha degdegga la soo daristo. Ganesh rabitaanka ah inuu barto culunta dhakhtarnimada codsigiisa ah ee laga diiday marnaba muusan ka niyad jabin. Ganesh gudbinta cabashadiisii halkeedii ayuu kasii waday, isagoo gaarsiiyey xafiiska waxbarashada gobolka Gujarat ilaa iyo maxkamadda gobolka Gujarat. Kaga sii daranee, mar kale maxkamadda gobolka Gujarat ayaa laashay oo meesha ka saartay codsigii Ganesh uu ku doonayay in loogu fasaxo inuu barto culunta dhakhtarnimada. Ganesh oo ah nin dhalinyaro ah, racfaan ayuu ka qaatay go'aankii maxkamadda gobolka Gujarat sanadkii 2018, taasoo markii dambe go'aan riyadiisa rumeeyay ay soo saartay maxkamadda sare ee Hindiya. 2019 ayuu Ganesh bilaabay waxbarashadiisa dhakhtarnimo, isla markaasina wuxuu qalin jebiyey sanadka 2024 bilowgiisii, wuxuuna ka shaqo bilaabay goobta la yiraahdo Bahargarh ee dalka Hindiya ka mid ah, sida ay daabacday majalada Audi Central. Dr. Ganesh ayaa yidhi sidan: yaraantaydii waxaan aad u jeclaa inaan barto culunta caafimaadka, gaar ahaan dhakhtarnimada, taasoo aan kala soo kulmay imtixaan fara badan. Markii dambena riyadaydii waan ka dhabeeyay. Waa run, qof dadka ka duwan ayaan ahay aniga, laakiin sida dadka caadiga ah, nolol farxad leh inaan yeesho, qoyskaygana aan ku faano ayaan rabaa. Ugu dambeyntii, takoorkii uu kala kulmi jiray saaxiibadiisii iskuulka, dadka ay wada shaqaynayeen iyo bukaanka laftooda faquuq ay ku hayaan Ganesh, inkastoo ay weli meesha ka bixin, haddana dhibkii uu soo maray waxay u noqotay dhiirigelin, taasoo inuu tusaale ugu noqday kuwo badan, walibana isagoo noloshiisii halkeedii kasii wato. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, waxaa intaa inaga barnaamijka wixii cusub ee Gaacar Media Tube, gaar ahaan maanta aan kusoo qaadanay arrimaha bulshada ee qisadii Ganesh. Waan isleenahay wax badan ayaad ka faa'iidi doontaan barnaamijkan kan xiga. Inta aan ku kulmi doono, nabadino.